ahaa maalintii ugu weyneed maalintii la aasay oo ahayd maanta baroordiiq weyn ayaa loo sameeyay kumanaan reer Gaana ah ayaa ka soo qayb galay kuwaasi oo isugu yimi magaalada Accra qoyskiisa iyo dhowr hogaamiye oo caalamka ah ayaa sidoo kale joogay waxaana kamid ahaa xogayihii guud ee qaramada midoobay ee xilka uu kala wareegay Antonio Guterres bal aynu daawana wixii uu ka yiri Kofi Annan. Since the shock of Kofi's death, ilaa markii uu geeriyooday Kofi Annan waxaan darsay waxa gaarka ka dhigay taasina waa Kofi Annan wuxuu ahaa mid naga mid ah hogaamiye adduunka oo aan caadi ahayn wuxuu ahaa qof ruux kasta ee adduunka ku nool uu iska dhex arkayay kuwa saboolka ah kuwa ku jira dagaalka kuwa quusta taagan waxay u arkayeen qof iyaga la jira sida in yar oo naga mid ah Kofi Annan dadka ayuu isku waday si fudud ayuu isugu keenay isaga oo ku mideynayay ujeed guud oo ah kan bani aadanimada ee guud. Put them at ease and unite them towards a common goal for our common humanity. bal markana aynu eegno muddadii uu Mr. Annan ahaa xogayihii guud ee qaramada midoobay iyo wixii uu qabtay. Kofi Annan waxa uu 1938 ku dhashay magaalada Kumasi ee waddanka Gaana. 1997 ayuu noqday qofkii ugu horreeyay ee Afrikaanka madow ee qabta jagada xogayaha guud ee qaramada midoobay. xilkaasi wuxuu hayay ilaa iyo 2006. 2001 waxa Kofi Annan iyo qaramada midoobay si wadajir ah loo guddoonsiiyey abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. balse waxa lagu dhaliilay xasuuqii Rwanda ka dhacay 1994. waqtigaasi wuxuu madax ka ahaa nabad ilaalinta. Annan waxa uu shakhsiyan isaguba sheegay in uu wax ka qaban karay sidii lagu joojin lahaa xasuuqaas. 2006 wuxuu gacan ka geystay dhexdhexaadinta heshiiska awood qaybsiga Kenya kaas oo doorashada kadib ay waddanka ka dhaceen rabshado baahay. 2012 Kofi Annan waxaa loo magacaabay ergeyga gaarka qaramada midoobay ee waddanka Suuriya.